السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii warka muhiimadiisii waa la dhameeyey. warka muhiimadiisii waa la dhameeyey. Sheekh Cabdilxayi horta Allah ha dhowro, ilaahay ha xifdiyo. runtii idinku waxaa laga yaabaa in aad meediyaha u ka qarateen, laakiin anugu kitaabaan wada akhrisanay isagoo runtii dhalinyaro ah oo aad iyo aad u yar ayaanu wada joognay magaalada Baydhabo. ilaahay nabadeedii amnigeediina ha soo celiyey. waxaan iskuul wada dhiganay Sheekh Jacfar oo dhankiisa midig runtii fadhiya. maanta reer Baydhabo meeshiisa u yimid, wixii mahmahaya ahaana waad arkayseen. marka anigu idinku soo dheerayn maayo. ilaahay waxaan ka baryayaa sheekha caafimaad Allah inoo siiyo, caafimaad buuxa Allah siiyo, carabkiisa xikmadaas allaha ku daa'imiyo. waa nin aad iyo aad u ur wanaagsan, dhalinyaradana runtii aad ugu dhex jira, doonaya daa'iman dhanka khayr kale inuu u wada ilaahay niyadiisa wanaagsana ka tawaabiyo. dadaalka dheeraadkee uu hayana ilaahay ha ku guuleeyo. runtii inta yar ee tacliiqaadka jimcaha ee aad ka aragtaan masjid Cumar ibn Khattab, intaas keliya unbaad idinku meediyaha ka aragtaan, laakiin hawlo ka waaweyn oo uu dhalinyaradii dhex gelayo xagga nadaafadda, xagga wadajirka, xagga isasaamixadda ayuu magaalada dhexdeedana ka wadaa oo uu dhalinyaradii la fadhiistaa. ma harsado runtii. ilaahay waxaan ka baryayaa socodkiisa, niyadiisa, afkiisa, adinkaba ilaahay ha ka tawaabiyo. isagoo kalena ummadda inoogu badiyo. waa shaqaan aad iyo aad runtii u jecel lahay, saaxiib aan soo dhaweynayno. idinkuna waxaad aad ugu mahadsan tihiin sida quruxda badan ee aad u soo dhaweyseen. waxaana runtii idinkula dardaarmayaa, waa yar yahay sheekh isagoo kala ah runtii. dad baa laga yaabaa inaad meelaha ka aragtaan. xasadka sidiisu uu jarayaa weligii, dhammaanna maayo. xasanulbasri baa ninkii la weydiiyey oo la yidhi xasadka ma laga yaabaa in la dhameeyo? wuxuu yidhi see loo dhamaynayaa xasad? alxasadku dhammaan maayo ilaa qiyaami saaca uu soconaya. hawcay bis baa joogo, intuu biska joogo xasadkana wuu jirayaa. qaar baa laga yaabaa inay meelaha ka yidhaahdaan sheekha dadka ka qosliya, beri ka qosliya. saa garti maaha. runtii inta aan loo fadhiyo culimada aan dhegeysto wallahi waa shaqan ugu jeclahay. saaxiib keliyana ma aha waxaan ugu jeclahay, yacni xikmadda kama seexi. darkayseen hadda qofku doonaya intuu hadlayay idinkaan idin eegayay. yacni nishaad waxaa jira qof markuu hawsha qabanayo garoonkaoodan marka la goynayo la jarayo, qaar baa birtiyo angelin siduu u jarayo wixii waysla qarxe, qaarna saliid buu ku shubayaa si u socotay miisaantii. baashi waxaad arkaysaa iyadoo si fiican oo tartiiba dhawaaq aan leen u dhamaatay. runtii inuu qalbiyadiina hanto waa wax aad iyo aad u wanaagsan. ilaahay waxaan ka baryaa qalbiga alla wanaajiyo. hal kelima marka oo yar oo u taqaanaan isku duduubo wuxuu ka hadlayay sheekhu wuxuu ahaa qalbiyada ha laysku xaaro, ha laysku cururtaaro, ha layscafiyo, ha la wada jiro. midnimada wanaag leh runta maaha. yadullahi maca aljamaaca soo maaha. ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ادفع بالتي هي احسن. يعني ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. ما يكون حولنا يولاد وكلدوين اسلامك مركا adiga wixii lagu geysto ama walaag ama xumaan daa'iman waa inaad ku bedeshaa wanaagsan. haddii lagu wanaajiyo wanaag ka wanaag bedel, haddii lagu xumeeyo wanaag ku bedel. daa'iman mu'min qiimiga ayaa tahay wanaag xaggaaga ka yimaado. midnimadu sheekhu sheegayo iyo qalbi wanaag iyo cadiska ku iman maayo ilaa aayaddaada dabaqo. siyar ayaa ku gabagabaynaya sultaan anuu halka ka wada joogo bil ka hor ayaa qolada ay dhahaan degediga ilaahay ha dhowro qabiil aada u wanaagsan
ayaa suldaankoda suldaan buure dal iyo dibadda way midaysan yihiin hal suldaan bay leeyihiin ayaa magaalo la yiraahda Niagara Falls ayaa kula kulmay iyaga degan keligood marka uu ila fadhiyay qisad loo sheekay anoo cafiska wada wuxuu yiri sheekh cafiska qisad ku saabsan ku haya wuxuu yiri suldaan kada sheekada aad u xoogan wahayiye ah tagayahana yani qabiil xoog badan ayaa gabadhiisii wuxuu u guuriyay qabiil kale oo yar yani nin kada sheekh qabiil iska yar oo markaa xoog lahay shan cunug bay u dhashay ninkii loo guuriyay suldaankii gabadhiisa shan bay waa la iskhilaafay ilaa inkii carabka isqoomeen kadibna ninkii uu caqli xumaaday mintii ku qaato gabadhii shanta dhashood waxay way dhimatay gabadhii laakiin waagii baa ku bariyey see loo maaraynayaa markaasaa waxaa ku soo dhacay qalbigiisii wareerkii warmooleyda ahaa reerkii hayeeyaha adiga maahane xaafadda iyo cidda oo dhan maanta waa la baabi'inaa maxaan samaynaa intuu ku fikiri lahaa sidii sanadxir loo geey lahaa reerkii loogu sheegi lahaa reerkiisii u sheegay waa la kala cararay godadkii iyo geedihii baa la kala fuulay reerkii baa maqlay ilaa ibliiska eg dil intuu kuwa warkii qaada hadansamoog kadibna reerkii buu u sheegay reerkii dhalinyaradii soo baxay see gabadheeni ma reerkii markii hore warhaleka ma ahayne markaas odaygii baa suldaankaa wuxuu yiri maanta idiinma tahdo arrinka waa idfac bilatii iyo axsaanidiis wuxuu yiri maanta idiinma tahdo idinka gabadha soo gabadheedii maaha anaa xalinaya u kaadiya odaygii galabtii oo dhan buu sugayay wax u yimid malaha habeenkii baa la gaaray habeenkii sidoo kale wax u yimid male wiilashii subaxii soo kaleen iyagoo warmahoodii falaahoodiis wuxuu yidhaahay gabadheedii waa inaan u soo aarnaa wuxuu yidhi idinma tahdo aniga ii taallaba awa islaamtii xaaskiisii ugu yaray wuxuu yidhi gabadhii ka yaree gabadhaa la deemaaday soo shabax waa la soo cilaamiyey dahabkii daakii quruxda badnaa labadoodii buu raaciyey wuxuu yidhi geeya kaxeeya reerkii u geeya wiilkii dilay walaasheed ha lagu daro anaa inta uga daray ha loo geeyo waa la geey reerkii maxay sugayaan fadhigeed baa la qoonaansana waxaa la leeyahay raggii ma soo socdaa godadkaa madaxa lagala soo baxaa raggii ma soo socdaa mise laba odayay fartaa soo socda waa la yaabay waraawi ninkii waa kan odaygii uu kusoo salaamayey gabadhii aad insha allah u naxariisto walaasheed buu haddana kugu daray waa tanaa tanana la soo dhigay reerkii waa yahay ninkii waa soo xigaaye idfac bilatii hiya kadibna wuxuu sameeyey buunkiibuu qaatay odayaalkii kala cararay iyo ilaacidii maadalla waayey waa laysu soo habarwaay war muxuu odaygii sameeyey gabadhii kale u keenay markaasay wada ooyeen waa la fariistay waxaa la yidhi warayaan noogu caqli badan kadibna waxaa la yidhi hebel maxaan samaynaa wuxuu yidhi waa cadaysanahay 2 boqol oo neef oo geel ah waa in la soo ururiyaa si degdeg ah waa la soo ururiyey wuxuu yidhi odayaalkii buu la hadlayaa suldaankii yaraa wuxuu yidhi 2 boqol 50 neef waa diyadii gabadhii aan dilnay 50 kalena waa sabeexirkii maadaama aan tegi weyne oo aan baqnay 100 neef kalena waa gabadhan yaradkeedii reerkeedii maaha waa yaradkeedii gabaatigii iyo maaragtaya wanaageedii soo garan hadda waxay yidhi wiilashu maxay sugayaan wiilashu waa dhaafsan yihiin reerkii kulli ciidamadoodu waa diyaar odaygii baa hor taagan kadibna 2 boqol oo neef iyo 2 oday baa soo laabtay markii loo yimid wiilashu waa yaabayeen war maxaa dhacay raggan intay dagaalo galeen bay xoolihii reerka soo kaxaysteen kaasaa la yidhi nimankii sidaasay yeeleen 2 boqol oo waa kuwan sidii qaybihii bay u kala sheegeen odaygii buu unan hadlay wiilashii buu fiiriyey wuxuu yidhi haye warmihii iska dhigeen way fahmeen macnaha warmihii hala dhigay sheekh waa garanaa yidhi xaalka marka wuxuu yidhi haddii aan fasixi lahaa ama dhalinyaro caqligiina oo ibliisku kicinayo aan fasixi lahaa maxaa dhici lahaa horta reerkii waad baabi'in lahaydeen ilmahayga yare shanta ahna ee hooyadood hore u dhimatee rajayda ah waa adoon baad ka dhigi lahaydeen soo maha
يا أبو الدين لهيدين وكذا لا لهيدين لكن صبرك ولئن صبرتم هذا لهو خير للصابرين وهل صبرك اليوم نفسا وهو نفسه لكن واجه قف صبره ونفسه ما أنت لو بقول نفسه عبسيدي وحو كساري قبيل دنبو عبسيدي كساري قبيل دنبو جعيل قلي صبرك شيخ وحيدين تقار لي واحد معه قبيلين ولكن معناه هذا العوى هل يصد القاطع هل يصد صبره ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ديار مولاه اليك ويسعدنا قلبيين واكل جيران مركزين وظهرنا حجاجنا لكن هذا قلبيين مسلم ونكسنا وان ولني شيخ عبد الحي والأوليني لكن قلبيين وكان حسيين إن بدروا آنس السلامين أي الله يا ونحن نكجرا بل إن قجيه أي أولت مادان وكلوا الإس هو لاليهنا معكو أي شطان ودكم حوك لكي قفل بادي لو يدي وحوك لي والله ما أكان وورا له من وحل يسوك لقاضي كنت قبضي نارك أخيران انت الرجال الله يبارك فيه ولا العرف اسمه عز عرف اسمه شرف عرف اسمه مدنمه وهو وحكى له يقول كارينا مر الى ان سعود الطارم مسعفين له مسعفين صومالي مسعفين الهي تبكي مسعفين انت الهي تبكي وعفليس او كان رجل يدي إلهي تبكي أنت وعفليس وراوات عاود تقول لنا رجعنا إنت رجعنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جعلت في الخاتمة قلبي إلى الذي فيها ولا لي إلى العفيس وراها إنها الدنيا آخر عفيس كل تجي كل نور كفر كل نور إن تجي الله العافية إلهي هيدا عافيه وفرض ولاتي ما تحكم عافيه الله عافيه وفرض ولاتي وركو حالي إلهي وحاكم مالك القيامة مالك آن ومالي وقرد وحبا أنفعين من قلبي ولا يسمي إلهي عبدي كنظر نبينا الله نافو نبينا الله نافو انت دنيا انا نقول من عفس والله وعزي عفس وحب إلهي وحاكم انت انا نقول عفس كاس إلهي يقولها وفضله إلهي يقولها وفضله إلهي يقولها وفضله انتوا بتقولوا نساء الله صالح على مصير انتوا بتقولوا حيث الله ولا جاجيو إلهي وحاكم من الذين يريدون الله ينوره إلهي وتكلمون صوماليا ونجعلها وكان تصفر باني وهو يرن إلهي أمان هجيو إلهي أمان كساسو ونجعل ولفي ساسو لكي سوى تقدير بالله هم إليه ولا إله تقدير وبحر الله كيله ولا نمضي إلى حق ولا نمكون سبح الله كيله إلهي عن المحافظ المعارف هو حق ونكسر قوة وتك الله كيله بلدي داري هو سبح الله كيله هو راوي عما يسبح الله كيله إلهي حتى بيتوك إلى مال الله أدوك إلى مال الله عذر العفان إنه بدله وكان تقول بتره إنه بدله نعيك كراهية جعلها إنه بدله وفر ما تكتب الله كتابه أنت لك يتكتب الله كتابه وليس أنت وليس الله كتابه حفظ كل الله أفضل غيره ديت أنت تيمي سنة قام إثنان إلهي هكذا إلهي معك بري السفر إلهي هيدا سيو أنا بدخل في النصر ولكن أنا وصفه يقول سنة ولا لها بقيو سنة ولا لها بقيو إلهي معك بري يقول خاص أمي شوية يجي إلهي يكون ودياره يصير عندنا كلام سمعنا إلهي يكون ودياره هو وضعك نفسه يبين عن كارم بين إلهي يسوع نوريو هو يلشيني إلهي يسوع نوريو إلهي وحكم بني وحي عليه وهيجي الله كيله إلهي قلبي الله نوصله كبير قدره نوصل عليه إنه أتوب إلهي نوصل إلى سوى خالد نجاه معنا حتى يقطع الجنة الفردوس إلهي يسوع نايجيه آياته في جعلها عبده انت تدعوني كخاصة القلبانية وفر قلبك وقوة إلهي وعن كبر دعاء الله يدين أكبر دعاء الله يدين أكبر إلهي دعاء يدين أكبر آمين بالتعالى حاجة سألنا من الله كي يرسيه إلهي تعالى لستك هو أكبر
hadduu xanuun yahay allah idinka qaado baahiga adeerka allah idin fuuyo هو أدوية الله فضله حلم أدوية الله فضله سيدة تعيشين خير إلهي ويدين له إلهي وحكى يا شيخ إن عندك صلى الله عليه وسلم هذا موجع الله وعند الطلبة الدار ويا في ديني سيري ركعة تعليق الجمعة هذه هذا الله صعوده هذا الصيف فيديو هذا الله صاحبه هذا اللي يدعيه هذه هذا المستثمرين السلام عليكم ورحمة الله. waxaan rabnaa inaan u dardaarmo waxyaha istaageen habeenka ugu dambaysa waxyaha jooga gabdhaha ayaa daran oo ilmo kasoo tegeen gabdhaha ayaysan albaabka gadaal kasoo bixin horey ha kasoo baxeen wiilashana xaggay ka baxayaan waxaan rabaa iclaanka ugu dambeeya inaa idiin sheego habeenka ugu dambayso beri galabtii markii gabdhaha maxaadarada loo jeediyo section 3 ayaa lagu khatimi rabaa maadaama magaalada xaafadii sidii xagga ugu dambayso maxaadaro masaajidka weyn ayaa lagu khatimi doonaa sheekh cabdulxay haddii ilaa yidhaahdo khatimkana ayaana ku kala maqnaan insha allah marka muxaadaradeeni iyo kulankeeni meeshaas ayuu nagu dhammaaday dad midoobay oo walaalo noqday meeshaani kulankaanay ku midoobay alla naga dhigo ilaahay hanaga dhigo ciwaankana waxaa la yidhahdaa walcaafiina can innaas tii hadday daba joogtaade walcaafiina can innaas insha allah jazaakum allah khayran asalaamu calaykum